يجب علينا أن نرفض كليا بأن نكون شركاء في هذه الجريمة السياسية والاقتصادية بحق الشعب الجيبوتي الأبي. حان الوقت لكي ننهي حالة اليأس والكسل والخمول. حان الوقت لكي نعطي معنى لوجودنا وحياتنا وقيمنا، وهو أهم وأكبر بكثير من الشرب والأكل فقط. في النهاية أذكركم بأن العملية حسابية، وأن النصر دائما حليف الحق والصدق والعدل، وسترون بأننا قادرين على إجبار النظام بالتقهقر والهزيمة، بل ومساعدة شعبنا وقواعدنا داخل جيبوتي. سيفر هذا النظام كما فرت وانتهت الأنظمة الدكتاتورية سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساكونا نهتم بالليمه جيبوتي نمه صدام سنة فنا مشكلة لمي أفراد حكسوين أساكو تنبليمي جيبوكو أفراد كلها جيبوتي عمداني تنكي يسمين نهتم بالليم ولا ليال ما أنتو حنوم مقطع dhibaatada ka taagan Djibouti inay leeyihiin dhibaato kaliyeed dadka afarta haysata. waxaa noo muuqata maanta dhibaatadu in shacabka reer Djibouti ay wada haysato. haddii dhibaatada shacabka oo dhan wada qabsatana waxa soo dhow guul baan u maleynayaa. waxaa lanagu yidhi shacibka iyaabal taagan oo soo bannaan baxay oo leh dastuurka quraan maaha hala bedelo dastuurka oo ha laga dhigo intuu doono inuu kusoo noqon karo madaxweynuhu. wax shacib la yidhaahdo oo maxaan ku dhahay waxaa ka dambeeya ma jirto. shacibku waa annaga iyo waa ay shacibku, annagu maana shacib ahayn. waxa la yidhaha shacib ma jiro oo waxaa ka dambeeya waxa weeyaan waxa dhowr nin oo maxaan ku dhahay nacamlayaala iyo ninka meesha maxaan ku dhahay dee isku ilooyay baadida isku iloobay ayaa samaystay sheekadaasi. shacibkana ma taqaanaa dhowr dee nacamlaa lagama waayo oo dee meelaha telefisyon ka soo baxa. haddii ay suurto gasho waxaan ku odhan lahaa walaalkay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, haddii karti iyo karaamo aad lahayd waqtigeygii waa lagu siiyey Ismaaciilo walaal. markaa wixii aad qaban karaysay ama ku hirgalaan ama inay ku hirgelin sababtuna waxa doonto ahaatee waad maxaan ku dhahay dee waqti lagu miiska lagu soo dhigi karo waa lagu siiyey. ilaahayna uu ku siiyey ummadana way mataqaanay dee kugu garab gashay. markaa maanta waxay ku hadhay waxaan filayaa inay tahay xil iyo ceeb haddii aad mataqaanay markaa dee nin dhega nugul oo ummadiisa jecel oo dalkiisa jecel ha tahay sida dee mataqaanay waayadii hore ee maxaan ku dhahay dadku odhan jireen. waxaan leeyahay walaal maanta iskaga wareeg xilka iska wareeji. xilku waa eed weeyi mataqaanay iska wareejiyo cid kale ha mataqaanay dee oo ummadda ha u dhibato. maanta talabaad waxa weeye halgankii uu bilaabmay diyaar baa loo yahay ninkan inuu laga kaxeeyo waddanka. diyaar baa loo yahay in dib calankii iyo sharaftiisii loo soo celiyo. walaalayaal waxaan leenahay tareenkii uu dhaqaaqay, halgankii uu dhaqaaqay. ummaddii waxay u diyaartahay maanta inay aayaheega ka tashato. ninkan meesha haysta waanan ku celinayaa Ismaaciil Cumar Geelle waqtigiisii uu dhammaaday. labadii moondaa way dhammaadeen. marka waa inuu iska socdo. taasna waxa weeye innakuna intaanu dhibaato iman waa inaanu ishabayno, waa inaynu diyaarsanno raggii amba ninkii waddanka qaban lahaa ee waddanka badbaadin lahaa. intaasaan anigu kusoo gabagabinayaa. walaalayaal aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leed uga soo qayb gasheen imashadii Daahir Axmed Faarax iyo kulankii weynaa ee dadka reer Djibouti la isugu yeeray magaalada Ottawa. waxaan leenahay dowladda Djibouti waa loo dhan yahay. ummadda reer Djibouti qabiil maaha. ummadda reer Djibouti waa dad mida. ummadda reer Djibouti qabiil maaha. ummadda reer Djibouti waa dad walaala ah. marka waxaan leenahay innakoo oo walaala innakoo isku duuban ayaynu halgankii xaggii ka sii wadaynaa. ayaynu wadaynaa inaynu calankii iyo sharaftiisii soo celino. marka waxaan kusoo gabagabinayaa Ismaaciil Cumar Geelle waqtigiisii uu dhammaaday ha iska socdo. nin dambo rabaa ma jirto.